shir jaraa'id oo ay ku qabteen Muqdisho wasiirada caafimaadka, gargaarka, arrimaha diinta iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayay uga hadleen cudurka corona iyo dhibaatooyinka uu leeyahay. ugu horeyn wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur ayaa ka hadashay kiisaskii ugu dambeeyay ee uu saameeyay bulshada Soomaaliyeed qayb ka mid ah. dhimashada waxay ahayd 24 saac shalay ku eka casarka 8 guud ahaan inta case oo positive ah wadankeena waxa waaye 8321 dhimashaduna waxay gaartay 302 intaas waa inta aan shaybaar ku xaqiijinay isbitaal ku dhintay ama la keenay oo inta la baaray yani guryaha ama jooga lagu ogyahay ama isbitaalada gaarka ah ama isbitaalada dawladda oo lagu daaweeyo nambarada aad u badan yihiin qiyaasta haddii qabuuraha iyo la tegay dad badan oo waxaa jira guryahooda aanan ka soo bixin oo aanan soo raadsanin kaalmo xarun caafimaad ama dhaqaatiir magaaladan aan joogno dhimashada inay badatay idinka aad iyo aad uga warqabo soo geliya tacsida iyo maaragtay aad iyo aad u badatay waa ka badan yihiin sidaan qiyaasayna aad iyo aad ugu badan yihiin nambarada la xaqiijiyay oo shaybaar lagu xaqiijiyay oo isbitaal soo raadsaday oo annaga aan hayno. wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Khadiija Maxamed Diiriye waxa ay sheegtay in dadka ku sugan caasimadda iyo gobolada Soomaaliya loo qaybin doono agabyada looga hortago corona maadaama itaalkeena aan wada ognahay waa lagama maarmaan marka waxyaabihii lagu dhawaaqay oo dawladda soo jeedisay iskuulaadkii meelaha la iskugu imaado dugsiyada quraanka in la kala durko oo aan goobaha la isugu yimaado dhan la yareeyo waxaana filayaa inaysan sidii loo sheegay aysan u soconin kolley awaamiirtaas waxaa ka ragtimaya waa la sheegi doonaa laakiin waxaan kaloo soo jeedinayaa dadkeena maadaama culeysyadaas la saaray dawlad goboleedyadana waa loo rarayaa waa u diyaar wasaaradda caafimaadka lagu soo aruuriyo afxirashada gobolka Banaadirna ilaa 1 milyan lagu qaybin doonaa maadaama la og yahay qiimiga uu yeeshay bahalkaas dadkeena qaarkiisna aysan awoodin 17 degmo xarumahooda ayaa lagu qaybin doonaa. ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir Handuuqa Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Filish ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay horay u dul dhigeen awaamiir ka soo baxday maamulka gobolka Banaadir balse aysan wali qaadan dadaalkaas marka intaas kaliya ma ahayn waxa la buufiyay magaalada oo dhan ayaa baabuur waaweyn lagu buufinayay wacyigelin wasaaradaha hadda gadaasheeda taagani ay ka wada qayb qaateen ayaa la sameynayay ambalansooyinka dabdamisyada yani dhalinyaro wadata yani haamo dhabarka ku wadata waxaasoo dhan waa laga wada shaqaynaya dadaalkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala mirihiisa uu soo bixiyo waa laga bogsooday asagoo ka khatarsan ayaa weybkii ama hirkii labaad ee adduunka ku soo noqday ayaa haddana mar kale soo gaaray dalkeena gaar ahaan magaalada caasimadda ah arrintaas ayaan ka hadalnay maantana ugu talagalnay si intii hore ka qaylo dheer inaan bulshada gaarsiino bulshada waxaa looga baahan yahay marka aan u sheegno khatarta jirta talooyinka la siinayo ama wasaaradda caafimaadku ay bixinayso ama guud ahaan mas'uuliyiinta dawladda ay bixinayaan inay u dhaganuglaadaan oo ay qaataan sidaas ayaa la doonaya. Maxamed Yaxya Jinow warbaahinta Nation Muqdisho.